kulan wanaagsan oo duhur wanaagsan meel walba joogtaan barnaamijka qodobadaan idinkugu hayo waxa kamid ah Donald Trump iyo Shiinaha oo ay ka dhex tolan tahay Trump wuxuu doonayaa inuu Mareykanka ka mamnuuco isticmaalka TikTok Puntland waxa la soo xulay 10 urur siyaasadeed oo doorashooyinka deegaanada ka qayb gali doona haddaba maxay tahay shuruudaha ururadan lagu soo qiimeeyay furashadii xafiisyada ururada siyaasadda oo ilaa ugu yaraan 6 gobol laga rabay inay ka furtaan inay soo diiwaan gashadaan 1800 taageero oo ugu yaraan 6 gobol oo Puntland ka jira oo marka suuqeyntu ay noqonayso 1800 oo taageero ururada bulshada rayidka oo ka hor yimid guddiye ay xukuumadda Soomaaliya meel marisay kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo maanta fooda isdaraya waa finalka koobka da'da weyn ee FA-ga loo yaqaano barnaamijkan waxa soo saaray Samiira Cabdullaahi Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbil aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Catoosh balse intaasoo dhan aan ka hormariyo warkii caalamka Ciise Xaaji Cabdullaahi Axmed ayaa diyaar la ah mahadsanid Cabdirasaaq Hindiya waxay diiwaan gelisay in ka badan 57,000 oo kiis oo coronavirus 24 saac la soo dhaafay taasoo ah tiradii ugu badneyd ee abid dalkaasi laga helo Maharashtra ayaa ah gobolka uu aad u saameeyay cudurka hase haatee maalmihii ugu dambeeyay waxa sare u kacay tirada dadka qaba cudurkan hogaamiyaha kooxdiimeedka Kuuriyada Koonfureed ayaa la xiray ninkan ayaa loo haystaa inuu hor istaagay dadaal lagu doonayay in cudurka lagu xakameeyo Lee Man-hee ayaa loo haystaa inuu qariyay warbixino muhiim ah sidii qaabka loo raadiyo dadka iyo macluumaad la xiriira goobaha qaar dalka Faransiiska waxaa la diiwaangeliyay kor u kaca tirada dadka uu cudurkan corona ku dhacay maalinkii saddexaad waxaa la soo sheegayaa in 15,000 oo qof oo cusub oo meelaha laga helay ay ku jiraan goobaha dalxiisayaasha caanka ku yihiin kor u kacan ayaa lagu tilmaamay saameyn ka dhalatay fasaxyada madaxweynaha Mareykanka Donald Jr. Trump waxa uu ku dhawaaqay inuu Mareykanka ka mamnuucayo abka TikTok oo muuqaalada lagu baahiyo waxa uu wariyaasha u sheegay inuu saxiixay amar sare oo qadka looga saarayo bartan TikTok ayaa gaashaanka waxay u dururtay eedeymaha in dowladda Shiinaha ay maamusho amaba ay la wadaagto macluumaadka la xiriira dadka Mareykanka abkan oo isticmaalkiisu xawaaro ku socda ayaa waxaa isticmaalay 80 milyan oo reer Mareykanka waxayna mamnuucida TikTok saameyn weyn ku yeelan doontaa shirkadda ByteDance ugu dambeyntina Mexico ayaa noqday dalka saddexaad ee tiro badan oo dadka qaba cudurkan coronavirus ay ku geeriyoodaan iyadoo in ka badan 46,600 oo qof ay ku dhinteen madaxweyne Andrea Manuel López ayaa lagu dhaleeceeyay in dalka uu xayiraado ku soo rogay xilli xaaladdu gacanta ay ka baxday hase haatee madaxweynuhu ayaa dalka dib u furay 2 isbuuc kadib aan dib idinkugu celiyo Cabdirasaaq aad baad u mahadsantahay Ciise Xaaji Cabdullaahi warkii dunida inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa sidii warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu Mareykanka ka mamnuucayo application-ka loo yaqaan TikTok oo muuqaalada lagu baahiyo wuxuu wariyaasha u sheegay inuu saxiixayo amar sare oo qadka looga saarayo bartaasi TikTok Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayaa soo akhriyo ila fadhiya Cabdiraxmaan bal sheekadan noo sii sharax Cabdirasaaq TikTok horta ugu horreyn waa iska fogeeyay durbeedaymaha in dawladda Shiinuhu ay maamusho amaba ay la wadaagaan macluumaad la xiriira oo ay dadka Mareykanku leeyihiin aabkan oo isticmaalkiisu imika xawaaro ku socdo ayaa waxaa isticmaala ku dhawaad 80 milyan oo reer Mareykana waxayna mamnuucida TikTok saameyn weyn ku yeelan doontaa shirkadda ByteDance la yiraahdo hase yeeshee weli ma cadda xilliga iyo sida loo dhaqan gelin doono mamnuucida TikTok iyo caqabadaha sharciyan soo wajihi kara maamulka Trump waxaa soo jiray warar sheegaya in shirkadda Microsoft ay doonaysay in TikTok ka iibsato shirkaddii lahayd balse Trump ayaa u muuqday inuu shaki gelinayo in heshiis noocaasi uu dhaco afhayeen u hadlay TikTok ayaa diiday inuu ka jawaabo mamnuucida Trump ee aabkaas laakiin waxa warbaahinta u sheegay in shirkaddu ay ku kalsoon tahay horena ugu kalsoonayd inay ka gungaari doonaan hadafkoodii ahaa inay Mareykanka ka helaan macaamiil fara badan talaabadan lagu mamnuucayo TikTok ayaa imanaysa xilli uu sii adkaanayo xiriirka u dhaxeeya Trump iyo dawladda Shiinaha iyagoo isku haya qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin khilaafka dhanka ganacsiga iyo dilaacidii fayraska corona oo dabcan Trump ku eedeynayo in Shiinuhu qayb ka ahaayeen faafitaankii fayraskaas Cabdiraxmaan xog intee la eg ayuu TikTok kaydin karaa halkii mar والله عبد الرزاق tirada imka la ogyahay xog badan buu kaydiyaa waxyaalaha uu kaydiyo waxa kamid ah muuqaalada ay daawadaan dadku iyo fikirka ay ka dhiibtaan uu kaydiyaa
xogta ku saabsan goobta qofku joogo uu kaydiyaa nooca taleefanka iyo inta barnaamij oo ku dhex isticmaalo uu kaydiyaa qofka muusigada ay adeegsadaan marka ay fariimahooda qorayaan macnaha dadku waxyaalaha ay isku dulduubaan iyo xogtaas oo dhan uu kaydiyaa qaar ka mid ah xog ururinta barnaamijka ayaa kor u qaaday soo jiidashada waxaana dhawaan lagu soo diray koobiyeynta iyo gudbinta fariimaha ay dadku wadaagaan macnaha in fariimaha gaarka ay dadku wadaagaan uu si gaar ah u kaydiyo TikTok balse waxay arrintan saameyn ku yeelatay kuwa lamida sida abab lamida sida LinkedIn, New York Times iyo BBC News lafteeda saameyn weyn TikTok ku yeeshay xogaha wariye TikTok ayaa u dhigma mid lamida xogta ay kaydiso barta ay bulshadu ku wada xiriiraan ee Facebook oo yana inta TikTok kaydiye in lag iyana kaydisa si kastaba laakiin xafiiska wakiilka macluumaadka iyo siraha UK ayaa isna sheegaya inuu baadhitaan ku wado shirkadan iyo bal xogta ay kaydisay sida loo adeegsado aad baad u mahadsantahay qodobkaasi TikTok iyo Mareykanka ay isku hayaan waxa fikirkiisa ka soo dhiibtay Sayid Cumar Usmaan Cabdulle Dhuusamareeb buu joogaa wuxuu yiri waxba soo kordhin mayso hadalka uu Trump ku sheegay inuu Mareykanka ka xiri doono TikTok waayo ma jiro sharci mamnuucaya TikTok oo ay maxkamad soo saartay mana fududa in aalada TikTok oo ay adeegsadaan dhalinyaro fadad badan oo Amerika la xiro Cabdiwaasac Xuseen Cali Qorshe isna wuxuu joogaa Hargeysa wuxuu yiri hadalka ka soo yeeray Donald Trump ee ku aadan inuu dalkiisa ka xiri doono isticmaalka TikTok waan bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa waayo TikTok waa application aan macno buuran ku fadhiyin wahagaag Puntland guddiga kumeel gaarka doorashooyinka Puntland ayaa soo saaray 10 urur oo ay sheegeen inay buuxiyeen shuruudihii laga rabay inay urur ku noqdaan ururadan ayaa ka qayb gali doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland haddaba sida qiimeyntan loo sameeyay ayaa wax ka weydiiyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ee Puntland Guuleed Saalax Barre furashadii xafiisyada ururada siyaasadda oo ilaa ugu yaraan 6 gobol laga rabay inay ka furtaan sidoo kale inay soo diiwaan gashadaan ilaa 1800 ama 300 taageero oo ugu yaraan 6 gobol oo Puntland ka mid ah oo marka suuqeyntu ay noqonayso 1800 oo taageero intaasna waxaa laga rabay wajiga labaad ama wareegga labaad wareegga saddexaad waxaa laga rabay inay qabsadaan ururadu shirweynayaashoodii sidoo kale ay ku ansixiyaan dastuurkoodii ku ansixiyaan golihii dhexe markaasna ay dhistaan marka golihii fulinta ururka intaasoo marka shardi ama intaasoo maaragtay qodob oo ku qornaa habraaca ayaa laga jeegareynaya ururada labada urur ee aad tiraahdeen shuruudihii way buuxin waayeen oo way guul daraysteen inay urur noqdaan maxay tahay waxay buuxin waayeen catoosha waxay buuxin waayeen waa wareegga koowaad way ka soo gudbeen oo shuruudihii aan ku xusay wareegga koowaad labada urur ee buuxin waayeen shuruudaha waxa ay buuxin waayeen waa shuruudihii aan ku taxay qayb ka mid ah haddaan hoos ugu sii daadego labada shardi oo ugu waaweynaa oo ay buuxin waayeen waxay ahaayeen inaysan soo dhammaystirin xafiisyadii laga rabay inay ka furtaan gobolada iyo sidoo kale liiska taageerayaasha oo ayadana intii laga rabay ay soo buuxin waayeen marka waxaa lagu kala harayay waa shuruudahaas ciddii buuxisayna waxay noqonaysaa cid u gudubtay inay qaataan shahaadada marka taa micnaheedu waxa weeyaan hadda 10kan urur ee la aqoonsaday waxay noqonayaan ururada siyaasadeed ee siyaasadda Puntland ku tartami doona waxay noqon doonaan 10ka urur siyaasadeed ee sifada sharciga ah ee heli doona oo shahaadada heli doona waxayna ku tartami doonaan waa doorashada golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose ee Puntland ee qabsoomi doonta haddii Ilaahay yiraahdo sidaan qorsheynay dhammaadka sanadka soo socda intii markaa saddexda urur ee ugu sara mara doorashada golayaasha deegaanka ayaa xisbiga u gudbi doona marka waxa ay ku tartamayaan ugu horeysa ma ahan madaxtinimada Puntland ee kore ee waa golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka Puntland waa golayaasha deegaanka sidaas weeye kadib marka cidii ku guuleysata u gudbi doonta inay xisbi noqoto saddexda urur siyaasadeed ee marka ugu codbata golayaasha deegaanka ayaa waxay isku bedelayaan oo aan u diiwaan gelin doonaa inay noqdaan saddexda xisbi ee Puntland ayaga marka ku tartami doona doorashooyinka kale sida baarlamaanka iyo usii gudbi doona haddii Ilaahay yiraahdo guuleed ma hubtaan in qiimeyntan aad daacad ka ahaydeen oo musuq noocuu doono ha ahaado nin jeclaysi urur jeclaysi iyo wax isdabamarin aysan dhicin markii qiimeyntan aad samaynayseen walaal waxa horta qiimeynta lagu samaynayaa wax hadda aan bal mugdi intaan la galo aanu anaga rabitaankayaga iyo jacaylkayaga maahayn waa wax cad oo habraaceeda uu qoran yahay urur aan la wadaagnay dadweynaha aan la wadaagnay website-kiga ku jira
marka horta waxa laga qiimeynayay waa waxa qoran oo qof walba uu fiirin karayo waxa ay yihiin kan labaad anaga processka kan sameeynay waxaan soo bilownay hubinta iyo xaqiijinta 23 bisha 6 ayaan soo bilownay oo hadda biyo ziyaada ayaan ku jirnay hubinta dhammaan gobolada ayaan soo marnay xafiisyada ururada ayaan soo kormeernay biyan ayaan mid u wacaynay iyagoo waliba ururada aanu u ogolaanay inay soo dirsadaan qof maaragtay kor joogto ah oo marka la xaqiijinayo liisaskooda meel joogka ah marka process anaga aan marna uusan shaki ku jirin xalaalnimadiisa ayaanu marinay ma laga yaabaa ururadan in nidaam qabiil ay ku dhisan yihiin ama ay madaxda ku jirta ay reer ahaan isu raacsan yihiin ama si ahaanba masawir qabiil ma laga daalacan karaa cabsaqo ma santahay waa su'aal fiican horta xeerka ururada siyaasadda Puntland marka horeba uu mamnuucayaa ururo muuqaal qabiil leh meelaha marka u horeysay oo fitting ama hubinta aanu sameeynay aanu ka fiirinay qayb ay ka ahayd shuruudaha laftigooda buuxintoodu shuruudo u sahlaya in qof walba ama dhowr qof intay yimaadaan isku xaafadii ay urur furtaan maba ahaynba 9 gobol oo Puntland 6 gobol oo kamid ah inuu ka shaqeynayo oo uu ka hirgelay ururkaasi marka waxaan xaqiijinayaa 10 iyo kuwa hadda oo aan buuxin shuruudaha wax muuqaal qabiil lahaa uusan jirin gudoomiyaha guddiga ku meel gaarkay doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Baraayo kaasi ah BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba dawladda Kenya ayaa sheegtay in wadamo dhowr ah dadka ka imanaya ama aadaya loo ogolaaday in loo safro taasoo micnaheedu yahay in duulimaadyadii dibadda ee hore ay u sheegtay inay bilaabayso la hadiday balse Soomaaliya kuma jirto diyaaradaha Soomaaliya aadama ka imaada waxa kamid ah shirkadda Freedom Xasan Shafad Yusuf agaasimaha shirkadda Freedom ee Soomaaliya ayaa ka waramaya wadamo dhowr ah oo iyadu ay xulatay oo kulli shuruudo iyadu ay dhigatay u buuxiyay oo ay sida waa lagu badbaadi karaa ama ay ku qanacday qaabka COVID-19 ay ula tacaalayaan ama uga hortagayaan ama dadkeeda uga ilaalinayaan ay ku qanacday ayay u furtay Xasan Shafad idinka Soomaaliyaad aadaan kana timaadaan cargo haduu yahay oo diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha rakaabkaba arrintan markii lidinku wargeliyay ma la xiriirteen dawladda Kenya ma tiraahdeen maxaa annaga duulimaadyadeenii Soomaaliya war looga soo saari waayay wallahi atoosh waa runta waa su'aal meesha ku jirta laakiin annagu sida dawladda Kenya maadaama annaga wax si gooni ah Freedom ahaan annaga wax si gooni ah noogu xiran ayna ahayn ama noo khuseeya ayna ahayn oo ah wadanka dhan ee Kenya go'aan oo qaatay annagoo shirkad kamid ah oo shirkadaha wadanka Soomaaliya ka shaqeysa kamid ah inaan si gooni ah umaanan aadin wixiina waa bilow oo wax maanta bilowday marka bal inaynu u yara sugno oo bal hadhow markii waxaan inta bilowday wax marka la bilaabayana iyo markuu xoogaa socdo isku mid ma noqdaan marka bal waxaan isleenahay bal horta waxa bilowdaano marka ay bilowdaan kadibna aad hadii alla yiraahdo aad markaas aad eegtaan oo bal dawladda markaas aan su'aasha weydiino laakiin hadda sida ay dawladdu go'aanka ay soo qaaday xayiraadii dhinaca Soomaaliya naga saarayd ama airline oo dhan ama shirkadaha diyaaradaha ka saarnayd ayaan baanu ka midnahay marka insha Allah waa sugaynaa inta ay balad waxa bilowdaan marka hore waa iyada lafteedu waa khudwa ila al-amaam ama waa tilaabo hore loo qaaday marka hore gabay hada waxa ma jirin laakiin hadii wax la ogolaaday shaqada iyadu waxa weeye kuwa kalena insha Allah inay doon ay ka daba tagi doonaan maxaad u malaynaysaa inaan Soomaaliya loo furin diyaaradihii aadi jiray ama ka iman jiray wallahi taasi waxaan oran karaa oo u malaynayaa inay tahay arrinta COVID-19 inay tahay baan u malaynayaa wax kale hadda aan ku tilmaami karo ma jiro laano saad ogtahay Kenya iyo Muqdisho labada wadan ama Soomaaliya si caama iyo Kenya aad bay isugu furnaayeen meelaha ugu dhaqdhaqaaqa badan bay ahaayeen cilada xidayna waxay ahayd COVID-19 ka bay ahayd mudayna xidnayd haddana waxaa la furay dawladda Kenya meelaha wadamo ay ku qanacday qaabka ay cudurka oo dagaalamayaan bay furtay Soomaaliyana waxay ka mid noqon doontaa insha Allah wadamada ku xiga baan rajaynaynaa annaga businesska iyaga markaa noo firman aadan u soo qabnaa si alla yiraahdo meeqa bilood ba hadda Soomaaliya aad ka xayirneedeen oo idan u duulin kana imanin laga soo bilaabo bishii March ama bishii 3 ilaa iyo hadda aan ku jirna feesta August inta u dhaxaysa weeye adigu waa qiyaasi kartaa waa 3 4 5 6 7
iyo sideedaad oo dee hadda un bilaabatay intaasoo bilood baanu ka xayirannahay. Soomaaliya waxay sheegtay in duulimaadyadii la furay inkastoo iyadu adduunka dhan ay furtay oo wadamo cayiman aysan sheegin. Marka way idin saameynaysaa soo ma ahan in Soomaaliya la tegi karo balse aydan Kenya ka duuli karin lana iman karin. Wallahi wayna saameynaysaa business wise marka la eego wayna saameynaysaa laano dad badan oo ama Kenya ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan ba ku noolaa oo ka shaqayn jiray ganacsiga ku furnayd caafimaad ahaan baa jirtay waxyaabahaas oo dhan baa meesha ka baxay dad badan baa hadda maxaan ku dhahdaa ku xayiran Kenya oo Soomaaliya aadi lahaa mise dad badan baa Soomaaliya ku xayiran oo Kenya iman lahaa marka dhaqaale ahaan socodkii iyo businesskii guud iyo annaga khaas ahaan shirkadaha diyaaradaha aad iyo aad bay arrintaasi noo dhaawacday oo guryaha laga dareemayaa iyo xaafadihii iyo dee ninkii shaqaynayay shaqaalihii shirkadda ugu yar baa ugu fiican baa waxay samaysay in percentage shaqaalihii la yidhaahdo ama 50 ama aan odhanna intaas percentage insha Allah mishaarkiina laga dhigayaa si dabka loo shiray marka saameynteedu inteeday leedahay waa saameyn badan bay leedahay. Xasan Shafad Yuusuf oo ii warramayay kaasi ahaa hagaag aan Soomaaliya sii aado kooxaha bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay xubnaha golaha adeega garsoorka dalka Soomaaliya oo dhawaan golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ay meelmariyeen gudoomiyaha isu taga ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxiidiin Shaatax ayaa BBC-da uga warramay waxyaabaha ay ku diidan yihiin xubnahan hadda la meelmariyay. runtii waayahan waxaan ku dhex jirnay sidii wax loo dejin lahaa xasradda ama khilaafyada siyaasadeed ee taagtaagan iyadoo loo gogol leeyahay sidii waddankan doorasho ugu dhici lahayd laysla wada ogol yahay oo dadka dan ugu jirto. waxaa la socotaan in arrimo badan oo dhinaca oo siyaasadda ay dhaceen. waxaa la socotaan in maaragta dhuusamareeb heshiis lagu soo gaaray kadibna 2 maalin kadib dowladdii kalsoonida lagala laabtay. waxyaabahaasoo dhan oo dhacay waxna dadka rajay gelinayeen waxna dadka rajada ayay xoogaa ka luminayeen in dowladdii kalsoonida lagala laabtay haddana hadda guddi garsoor ama golo garsoor oo muddo la sugayay muhiimna ah in maanta dalka uu yeesho in lala sugi waayo in dowladda inta laga helaya dowlad kalsoonida haysata oo dowlad kalsoonideeda dhacda ay soo gudbiso waxay u aragna inay tahay arrin culays ah oo runtii keeni karta maaragta in sharciga waxyaabaha laga leexdo si taa marka aysan u dhicin dadkuna ay dareenkooda aan la wadaagno dowladda hoggaankeeda inaan soo saarna warqadan qoraalka aan leenahay nalama habboona in hadda oo dowlad kalsooni laga laabtay ee shaqooyin noocaas fuliso oo aad u baahan in laga taxadiro. waxaan u soo jeedin in lala sugo dowladda cusub oo la dhisayo mar haddii muddoba la sugaye. golahan adeega garsoorka waa muhiim muddana waa la sugayey marka waxa ugu weyn ee aad cuskanaysaan ee aad ku diidantihiin adinku maxay yihiin? waxa ugu weyn aan isleenahay runtii kuma habboon waxa ay tahay hadda waxaan ogsoonnahay in kalsoonidii dowladdii lagala laabtay xukuumadda golihii baarlamaanka golaha shacabka uu kala laabtay dowlad kalsoonida laga laabtay oo lagu tilmaamay inay guda weyso waajibaadkooda in haddana ay gudbiso ama ay ansixiyaan golihii adeega oo ah lafdhabarti cadaaladda. taa ayaa ah midda aan keentay inaan arrinkan waraaqda ka soo saarno aan ku diidno ma garad. Cismaan Muxiidiin Shaatax ayuu kaasi ahaa. galabta ciyaar baa dhacaysa weliba fiidka weeyaan 7:00 Arsenal iyo Chelsea ayaa is arkaya waa ciyaarta finalka FA-ga loo yaqaano. faahfaahintan oo weliba dhammaystiran galabta idaacadeena ayaad ku maqli doontaan. haatanse baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da magaalada Nairobi idinkaga soo tibinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caashe Saciid Xasan Caasha. mahadsanid Aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Xaliyo Faarax Ugaas oo joogto Baardheer. waxay baafinaysaa Falxado Faarax Ugaas waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Jarmalka. haddaba haddii aan maqlayso Falxado Faarax ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xaliyo Faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheer. Axmed Cali oo joogta Buurdhow waxay baafinaysaa Maxamed Xuseen Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2013. haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Barne Axmed Cali iyadoo wax warar loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer.
cabdinaasir bashiir galad oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa cabdinajiib bashiir galad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jarmalka 2016 haddaba haddii uuna maqlayo cabdinajiib bashiir amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdinaasir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. fartuun maxamed cali oo joogta miyiga waxay baafinaysaa sucaad yaasiin farxaan waxaa ugu wardambaysa iyadoo ku sugan dalka Canada sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo fartuun maxamed cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. daahir fiidow cali oo joogo baardheer waxa uu baafinayaa cabdulaahi fiidow cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan suudaan 2018 haddaba haddii uuna maqlaya cabdulaahi fiidow amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo daahir fiidow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. xaliimo samatar aadan oo joogta miyiga waxay baafinaysaa naciimo samatar aadan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan koonfur afrika sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xaliimo samatar aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. shabiin axmed cumar oo joogta baardheer waxay baafinaysaa aadan salaad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2014 haddaba haddii uuna maqlayo aadan salaad amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo shabiin axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. luul samatar mahad oo joogta miyiga waxay baafinaysaa sharwac mahad ismaaciil waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Finland sanadii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo luul samatar mahad iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. xamdi xaashi bashiir oo joogta baardheer waxay baafinaysaa naciimo axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Australia haddaba haddii ayna maqlayso naciimo axmed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xamdi xaashi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. farxiye cabdisalaan ismaaciil oo joogta miyiga waxay baafinaysaa sucaad cabdisalaan ismaaciil waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mozambique sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo farxiye cabdisalaan ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. caasho ibraahim nuur oo joogta baardheer waxay baafinaysaa maxamed ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan ingiriiska 2013 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed ibraahim amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo caasho ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ruqiyo sharwac maxamuud oo joogta kormaari waxay baafinaysaa faadumo xaaji maslax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo ruqiyo sharwac maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526889426. maxamed cali maxamed oo jooga buurdhowba waxa uu baafinayaa xamdi cali maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Jabaan 2014 haddaba haddii ayna maqlayso xamdi cali amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maxamed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. sacdiye mukhtaar magool oo joogta miyiga waxay baafinaysaa xasan mukhtaar magool waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2006 haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo sacdiye mukhtaar magool iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 cumar cali xuseen oo joogo baardheere waxa uu baafinayaa cabdi cali xuseen waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Angola 2015 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi cali amabay cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cumar cali xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. sundus axmed ismaaciil oo joogta miyiga waxay baafinaysaa yuusuf axmed ismaaciil waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka koonfur afrika haddaba haddii uuna maqlayo ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo sundus axmed ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisa uu yahay 25261993 samiiro nuur faarax oo joogto
baardheere waxay baafinaysaa xasan nuur faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan angola 2014 haddaba haddii uuna maqlayo xasan nuur faarax amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo samiiro nuur faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. xamdi warsame cabdi oo joogta buurdhow waxay baafinaysaa ubax warsame cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka talyaaniga sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xamdi warsame cabdi iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama uu telefoonka nambarkeedu yahay 2526 faadumo hire faarax oo joogto baardheer waxay baafinaysaa axmed faarax xirsi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Brazil 2013 haddaba haddii uuna maqlayo axmed faarax xirsi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo faadumo hire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. amran cawaale oo joogta buurdhow waxay baafinaysaa naciima cawaale faarax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Australia sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo amran cawaale iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkeedu yahay 2556933972. carfi xaashi cali oo joogto baardheer waxay baafinaysaa xamse xaashi cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Canada 2015 haddaba haddii uuna maqlayo xamse xaashi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo carfi xaashi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka lambarkiisu yahay eber 6257676 faadumo cali ugaas oo joogta buurdhow waxay baafinaysaa aamina cali ugaas waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo faatuma cali ugaas iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama uu telefoonka nambarkeedu yahay 2526 eber 4 cusmaan cabdi daahir oo jooga baardheere waxa uu baafinaya ismaaciil faarax waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sacuudiga 2015 haddaba haddii uu maqlayo ismaaciil faarax ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cusmaan cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 ambiyo nuur aadan oo joogta buurdhow waxay baafinaysaa cabdinuur aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo ambiyo nuur aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 cadar maxamed cali oo joogto baardheere waxay baafinaysaa fawziya maxamed cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Shiinaha 2013 haddaba haddii ayna maqlayso fawziya maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cadar maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. fawziya cali guhaad oo joogta buurdhow waxay baafinaysaa canab cali guhaad waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo fawziya cali guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama uu telefoonka nambarkeedu yahay 2526 eber 881 mahdi faarax dheer oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa xareed faarax dheer waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Shiinaha 2015 haddaba haddii uu maqlayo xareed faarax ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo mahdi faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 eber 82 eber 22 cabdi yaasiin cali oo jooga buurdhow wuxuu baafinayaa awil axmed cigaal waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Faransiiska sanadii 2013 haddaba haddii uu maqlayo ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdi yaasiin cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 faysal cali daawud oo joogo baardheer waxa uu baafinayaa faarax caabi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2014 haddaba haddii uu maqlayo faarax caabi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo faysal cali daawud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay cabdiqani nuur diyaad oo jooga buurdhow
wuxuu baafinayaa mahad nuur diyaad waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka jabaan sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyey cabdiqaani nuur diyaad ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer ama telefoonka nambarkiisu yahay 252619 eber 1 baafintiina maanta waa nageyntaa idaacaddiina intaasaan ku soo qatimayaa galabta 5 marka la gaaro hadduu alla awoodda la ogolaado ayuu ballankeennu yahay inta ka horraysa nabadgelyo